laga yaabee inay maqal kugu tahay ficilada guracan ee argagixisada ama aad daawatay dhibana aan qeexi karin dhaawac la haray laxaadkiisa miirkiisa ama dhalashayntii u xigtay igama aha inaan ku daawadsiinayo jilliin laga xulay isfahan waaga u dhaxeeya koox gaangistara ah iyo booliiska magaalada labaad ee ugu shacbiyada badan adduunka ee Delhi xaqiiqada nala arag talaado February 6 sanadkan 2024 waxaa ku baahay internetka muuqaalo argagax leh oo ay fasiri kari waayeen xoogsatada baraha bulshada halka janalada argagixisada ee aan joogtada ahayn ay sii daayeen fariimo isbariyeelid ah laakiin TV-ga qaranka oo ka helay fursad keedka kaamirooyinka amniga ayaa ku dulgeynayo asalka iyo natiijada qaraxyadii boorsooyinka looga keenay ceelasha biyaha كاميرا أمانك لقوا إلى توجد لقوا إلى ضحطة إياه وكان لقوا إلى إن قف حقيسة لقوا قادني سفود بلقوا إلى ما أنت أوكله مركي الله بعد إن دي بلا تحرعه فالدنبيات كدعي إن دجر قبياشي فكذا ودت كل حد بما لسنة هي اللي سوقته أي فضينا يعني إذا ماذا أمانك وكم هتسيهين مويانتاس ما في يدعى وإلهي كفرتي كو اللي جسوقته كو كرنا إلا جسوقته وعدالة أي مرانا وحيد دد مرسية اللي مرسيه أي نادي يضوات كين هي بكارو boqolaal macaash doon ah ayaa albaabada u furo macaamiishooda si joogto ah mana lahan ujeedada aan ahayn faa'iido kororsi adeega kasta hina kuma jiro dareen amni iyo armaad kaalintaada ku kabtaa qarankan sanadihii tagay dadnimo ay ganacsatada kaga dhiidhiyaan baada argagixisada ma jirin laakiin dawladda Soomaaliya ayaa go'aamisay hab raacyo lagu xadidayo qulqulka kobaca dhaqaale ee sida xislaanta ah ay u sameynayaan argagixisada lamaha amaanka oo si tartiib ah uga guurayo caadooyinkii hore ee badqabka ka shaqaynta joogtada ah ayaa u diga rogtay aragtida cusub ee dunida casriga ah waxayna dhalisay in Muqdisho lagu xiro CCTV u gaar ah ciidamada sidaas oo kalena lagu waajibiyo goobaha ganacsi oo ay ka yihiin suuqyada Muqdisho bakaaraha u horeysay fulinta hawshani waxa ay dhalisay buuq badan iyo ka hadalka shakhsiyaad iyo kooxo aysan u kala socnayn danaha dalka iyo hiilada argagixisada kowda iyo barka duhurnimo talaado 6 February sanadkan waxaa dhacay qaraxyo isxigxiga waxaana mar qura boorsooyin farsameysan la dhigay Badar Kaamil Sanguuni way arag iyo dhismo qabya ah ceelasha biyaha gaar ahaan dawladka Jabadgeela ayaa laga soo raray qaraxyadan waxaana geed fariisi iyo naqshadeeye ka ahaa madaxa sirdoonka qaybta gaadmada kuwooda jugta culus Maxamed Daxal Farxaan Shariif Faarax shakhsigii ugu horeeyay ee furaha u ah shabakadan ayuu noqday waana milkiilaha bajaaj nuuceedu uu yahay ee taargana ay u tahay M1863 maalintaasi oo aysan u ahayn ee tooda waxa uu dhex maray Cabdullaahi Axmed Jimcaale oo ay algaras ka wada yimaadeen Galgaduud Cabdullaahi waxa uu lahaanshiyo iyo wadis u leeyahay Moota B oo aqoonsi gaadiid u ah M555 waxaana lagu qanciyay inuu iska nasto kaash ahaan uu qaato qiyaasta inta uu maalin la ahaan u shaqayn karo 35 jirkan cimrigiisa u qeybiyay Muqdisho Ceelbuur iyo Ceelgaras ay warbaahinta fursad u heshay inuu uga jawaabo eedeymaha muuqdo ee aan wali gaarin fagaaraha cadaaladda maalin soo wacay ورني موتدا ما تالا ما موتدي مشقيهيد موتدي ee waaye mooto kale ma soo heli kartaa mooto waa raadina marka mootadii mootan raadiyay mooto B aan soo helay oo soo kireeyay soo waxa imaataa ceelasha ceelashan tagi yara igu imaaday meesha masaajidka agtiisa yar lagu balamiyay yarka uu imaaday waa israacnay Jabadgeela xaafad aan tagnay guri ma geeyay meel soo ku istaajiyay marka xaafad meel ka soo xaafadiisii kulli meel ayaan soo kala luuqa istaajiyay waa soo kala wareegay saas la jeediyay bartaa joog oo baxay laba boorso cusub oo dollarka boorsooyinka lira soo wada imaaday miskiya boorsooyinka ku keenaha boorsooyinka soo qaad boorsooyinka sidii ku soo qaaday 7 saac soo wacay soo qaad u dhahay soo qaaday masaajidka oo xareed gadaashiis soo istaagay
meeshaan soo istaagay ninkii awal ii soo dhiibay aa ii imaaday ninkaas kula joogaa haa boorsooyinka hal mid oo la degaa hal mid si boorsooyinka qaato midda kale haay boorsadii la degay mid kale haddana ii imaado koofi wata wuxuu yiri ninkaas kalena midda kale sii sida sayna haddana ku siiyey isna saas ku qaatay labadana dhalinyaro ahaayeen nin waa buuraay waa mid kow gurigiisa in xagga aan ka soo qaaday marka ninkan nin wuxuu ahay buuran waxa calal buuran oo gar yar leh madow koofidina buluug inay ahayd malaha koofi buluug ja buluug ay ahayd indhayga marka midna masaajidka wuxuu ka soo baxay xareed midna masaajidka Abu Hurayra ka soo baxay labaduba saas iga aadeen midna luuqo maray midna jidka weyn oo maray labada boorso caadi ay u jiiday ay baxeen aniguna toos dhankaas waxaan u baxay oo baar wax masaajidda Abu Hurayra iyo xareed ayaa u ah kooxdan fuliyaasha ah goob ay ku kala qaateen alaabaha dhiig daadinta iyo cabsi gelinta ay u isticmaaleen hadda guriga Allah xitaa lama xurmeyn hase yeeshee maba ahan wax looga fadhiyo argagixisada duhur salaad duhur kadib bakaaro iyo boorsooyin qarax ah iyo cimiladan kulul ee dalkan ma aha wax suurad muslim imid dameerka caadiga ah aqbali karo laakiin sharwadayaashan isku naqshada ahaa ayaa uga wakiil ahaa kooxda caadada u ahayd suurad xumeynta diinteeda waana kooxda khawaarijta al-shabaab shaqaalahan ku wada jeeda shaashada taleefanadooda ma qabaan wax dareen ah mana oga inay u dhimanayaan maxad u nooshihiin in badan oo kamid ah waxaa salfaday ficilada argagixisada markasta waxaa ku go'an canjalad ah cidina takana kama eedan gelina badidood waa baad bixiyaal haddana aan ku nabadgelin kan waa haga aan ka didsaneen howshiisa halka inta kale ay yihiin dhibanayaal aan ka baran cashar tagtooyinkii xumaa ee argagixisada waxa uu iska wataa hirgelintiisa waxa uuna mar kale badhanka u taabanayaa jug hor leh qof bac wata oo boorso wata oo in wax gadayna iska dhigahaya oo suuq imaanaya marka hadda dembiga maarta dhagarta oo ragga ay sameeyeen oo dad muslimiin ah oo hadda soo tukaday waxba aan dhib filanaynin laakiin qof uu soo galay oo dukaankaaga soo galay oo in wax gadanaya iska dhigay soo garamaysid waa qof aad ku khiyaanaya weeye oo ilaahay aan ka cabsanaynin oo aan akhlaaq ilaalinaynin weeyaan marka khiyaano noocaas oo kale ah waa khiyaanooyinka maalinta qiyaame calanka loo taagayo weeye dukaankaas qof Soomaaliyeed baa ku ganacsanayo muslim ah oo ahlu diin ah oo waxa weeye qoys Soomaali ah oo caruur iyo hooyo iyo waalid iyo walaalo iyo ka kooban oo uu u yahay geed ay harsanayaan waa imaanayaan alaab sitaa dhabarku wuxuu ku sitaa boorsadii buu meesha u dhigaya qof gadanayo iska dhigaya xogaa buu joogaya waa soo baxaya isla isagii baa qarxinaya markuu qarxiyo dadku ay kala yaacaan waa dhagar qabahaase wuxuu ku sugayaa banaanka si uu u xaqiijiyo dhibaatadii iyo dhagartii uu doonayay inuu gaarsiiyay dadkii yani warmaqabtada ahaa ee nabadda u ganacsanayay oo waliba suuqii ugu weynaa Soomaaliya oo la dhihi karo laf dhabar buu u yahay dhaqaalihiisa suuqa bakaara haddii meesha laga saaro Soomaali sida xalkeedu noqonayo lama sawir karayo dhiganayaasha boorsooyinkan waa macaamiil oo ekayaal waxa ay sameeynayaan qaraxyadooda waxayna isaga tagayaan boorsooyinkoodii daqiiqado badan kadib lama sii daawan karo natiijada wuxuusnimo ee ka dhalatay hagardaamooyinkaas intii aan daawada ka ahaa keedkan waxay indhahaygu qabteen badqabayaal aan wax gaarin laakiin ku noqoshada goobahooda ay jug kale ka yeertay taasi oo ah in loo kala dambaysiiyey laakiin baraaruga oo ka liitay darteed ay nolosha waayeen qaar kuwa kalena ay dhaawacmeen marka haddii aanay masaajidkii dhaafaynin haddii aanay qofka ganacsadaha dhaafaynin haddii aanay islaanta masaakiinta ee muuqaalada qaarkood sida la arkay meesha horteeda shaaha ku iibinaysa dhaafaynin haddii aanay dhaafaynin qofka maaragtay meesha iska marayay ee iska socday ama meesha shaaha ka cabaya aanay dhaafaynin
waxay runtii taasi nagu waajibinaysaa in cadowga noocaasa maaragtay aan dagaalkiisa runtii dadka Soomaaliyeed dagaalkooda waa ku jiraan inta hadda aan ku jirno ka badan inaan dagaalkooda galno shaki kuma jiro cadowgaas khawaarijta ah ee noocaas u dhaqmaya in guryo dad naga mid ay ku nool yihiin ay baryeen habeenkii ka horeeyay maalinta ay dhibka geysanayeen in alaabtan meesha la dhigay ay ahayd meel dad Soomaaliyeed ay joogaan in baabuurkii lala soo raacay in dad Soomaaliyeed ay saaraayeen in masaajidka iyo meelaha ay ku gambanayeen in dad Soomaaliyeed ay joogeen intaas oo dhan marka inaan qofna macluumad helin macquul ma noqonayso runtii nimankaasi maaragtay niman mudan in la soo afjaro weeye niman mudan in la iskugu tago weeye niman mudan in maaragtay dowladda iyo shacabku ay maaragtay maxaanku iskaashadaan sidii raggaas waxay wadaan waa maaragtay waa soo xad dhaafeen waxay reebeen ma laha garanaysid marka in aan loo jexjexin baa la rabaa oo dowladda lala shaqeeyo oo dowladdu iyo ganacsatadu kulli isku kaashadaan in ragga la soo afjaro isla xilligaasi waxaa nuuca qaraxa dajiska ah lala egtay guri qabyo ah oo ku yaala howl wadaag waaxda Saqaawudiin laanta hilaac ee suuqa Bakaaraha Farxaan Shariif Faarax maalin kadib habeenkeedii ayuu kala wareegay warqado digniin ah mootadan oo uu iska leeyahay kuna xamaasho si wajiye kala duwan ah Khayre Isxaaq Maxamed Cali nuuca ee aqoonsiga tirsiga u ahna waa M7 696 habeenkaas maalintaas shaqaas keena ma u dhahaynayo waraaqadaha waxa ka soo qaaday baarbax lagu keena waraaqadahaas waxa laga rabaa inaa dad ku wareejiso marka waraaqadihan soo qaaday baarbax masaajidka oo Maryama aan soo istaagay luuqiiso igu keenay nina ii keenay oo ii keenayna bacdi nin mootaala iyo gabar iyo nin odaya iyo mid aan meel dhigay afartaas qofood aan kala qaadat wuxuu yiri oraa meesha ma taagan tahay ha mootadu agtaada ma taagno hortaada ha bis isla markii wiilkii ii imaaday wiilkii markii isla markii uu imaaday alaabtii uu ii dhiibay oo ku bakshada ku jiraan oo kala bakshadii uu ii dhiibay bakshadii aan soo qaaday Khayre Algaras Bokol ayuu ku dhashay waraaqadahan loo dhiibay dhowr qof oo haween ku jirto ayaa lagu daadiyay suuqa waxaana ku qornaa jumlooyin ku digasho ah iyo digniino hor leh sida ha xiran kaamiro ha ka ganacsan cidna ha u xirin haddii kale waa naga suuragal inaan ku qarxino marka aan doonno wax la macno ah ayaa ku qornaa warqadahan inta la ogyahay 12 ruux ayaa ku geeriyootay oo shacab ah halka 35 kalena ay ku dhaawacmeen 13 ka mid ah waa ka boodeen fanfaniinkii gaaray uma jiifaan halkan kuwa kalena weli ayay sariirta xaalado culus la saaran yihiin Maxamed Daxal maskaxda kooxdan ka shaqeysay xadgudubyadan diiwaan galay Maxamed Cabdullaahi Miro waa mid ka mid ah dhiigdaadiyaasha ugu halista badan ee ku jira liiska argagixisada waxa uu ahaa iibiye shidaal asalkiisa waxaa lagu xasuustaa Hiiraan iyo Galgaduud dagaalo ka dhacay argagixisada ayuu u yahay isticmaale reerkiisa ku qasbo uu adeegida dhagarta ugu doono hadda waa farsamayaqaan iyo xiriiriye hogaamiyo qaybta gaadmada kuwooda isticmaala jugta culus waxa uu tirsadaa Ceelgaras oo Galgaduud ah waxaan u bandhigaynaa abaalmarin aan xadidnayn cid kasta ay kala shaqeyn karto hay'adaha amniga 60 dhagar qabe ee liiska cas ugu jiro ciidamada haddaba muwaadin ha ogolaan inaad ku caawiso argagixisada gumaadka qoyskaaga qarankaaga waa kaalintaada markan waxaa kula siman hal dariiq oo ah ka baaqsiga kaalmeynta argagixisada foojignaan iyo la jaar noqosho hay'adaha amniga haddii aadan badbaadaynin oo aanay jirin sabab ay maaragtay muxuu ahaa cadowga noocaas aad u qarsato waxaa waajiba in dagaalkooda dhammaanteen aanu qalab qaadano oo aan qofna ka gamban oo aan qofna xoolo ku bixin oo aan qofna maaragtay muxuu ahaa ku daahin oo wax kasta oo keenaya in ragga la ogaado oo xogtooda la helo oo muuqaalkooda la helo aad baa loogu baahan yahay waxaa loo baahan yahay marka in qofka ganacsadaha dantiisa uu garto oo ay tahay inuu dowladda kala shaqeeyo sidii ay naftiisa u badbaadin lahayd ammaanka sidii loo sugi lahaa
jawi uu ku shaqaysto oo nabadgelyo ah sidii uu abuuran lahaa. waxaan ku shaqaysanaya khiyaanada intaa la eg oo nolosha aanan ogolayn oo colka la jiritaanka sidii meel looga soo wada jeedsan lahaa qof. muwaadin badbaadaad u tahay dadka iyo dalka. cabduqaadir ciise, warbaahinta qaranka, Bakaaro.